السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدبل السلام يا ملبا شكتان يسوى البا ودي مغلسان با. مقالكم حندونا يا إني نبالكوف عن قينه دعادي يابك الهيد كذا عادي هذا جنرال جوردن مقالة مقدشو وحنسق حسدونا يا بل إن عن مقال كان عن صدق سؤالات ومركز مهم عن بالقوف عن قيو مقال كان سؤال شو قرر رسا وحنكال دونا هرتم حاد عي وحدا مقال حبيا هيان ووربوها maxaa dhacay marka labaad waxaan ka hadli doonaa bal sidee wax u dhaceen wixii dhacay see ahaayeen ayadana waan falanqeyn doonaa finally waxaan ka hadli doonaa dhacdadan dhacday maxay muujinaysaa waa maxay ifafaalaha ay muujinayso iyo waxa ka soo baxaya kadib markii ay dhacdeen bal meelaan ka taaban doonaa soo dhawaada meel walba waa joogtaan iyo si walba oo marka aad maqlaysaanba haddii aan ka bilaabo arrinta ah maxaa dhacay inta la og yahay waxa dhacday inay dhacdo markaasi ka dhacday xerada General Jordan ee magaalada Muqdisho oo tababar loogu soo xirayay ciidamo marka ay tababareen dawladda Imaaraadka Carabta dhimashada meeshaasi ilaa hadda inta la og yahay oo ay isbitaalada iyo xogaha hordhaca ah marka ay sheegayaan ayaa ilaa 20 qof la gaarsiinaya oo ay isku jiraan dad kala duwan oo aynu dib ka falanqeyn doono waxa ay yihiin dhaawacu ilaa 30 ayuu markaasi u gaaraya waxyaalaha dhacay waxyaala aad loo qarinayo weeye oo waxa la yiri xeeradaasi dhacday kadib waxa gacanta ku dhigay oo gacanta ku haya dawladda Imaaraadka Carabta in information badan dibadda u baxaana marka lama doonayo maadaama saraakiil waaweyn meesha lagu dilay inta la og yahay oo soo duulduulay waxa ka mid ah in waxa dhacay ka dhaxdhaceen gudaha masaajid ku yaala xeeradaasi oo marka ay dhacday waqtigii ay salaada maghribku ay taagnayd ama lagu jiray sheekhi masaajidka ka tujinayay dadkii meesha ku tukanay muslimka ahana marka uu ka mid ah dadkii halka ku dhintay waxyaalaha kale meesha hadda laga og yahay wixii ka dhacay waxa ka mid ahaa ilaa 7 saraakiil ah oo 4 ka mid ah ay yihiin saraakiishii ugu sarsareysay ee Imaaraadka Carabta ayaa halka ku dhintay ilaa 3 kale calooshood u shaqaystayaal ah oo ayagu ay wateen madow ahaa oo ka mid ahaa hawladeennadii xeradaasina meesha ay ku dhinteen inta kalena waa Soomaali baa la yiri oo askartii meeshaasi lagu tababarayay iyo dadka meesha joogay ayay ahaayeen dadkii meesha ku dhintay waxa ku jiray sargaal aad caan uga ah dawladda muslimka oo magaciisa la yiraahdo Colonel Maxamed Mubarak ninkaan arkaysaan weeye ninkaan wuxuu horay Imaaraadka uga shaqeyn jiray ama ay ugu direen dalkaasi Yemen xogaha qayb ka mid ah waxay sheegayaan xataa mar in Suudaan la geeyay hadda xilli ka hore ah ninkan wuxuu ka mid ahaa dadkii dalkaasi Yemen burburka ba'an u geystay dadkoodana sida xoog gal u laayay hawlihii ay Imaaraadku dalka ka qabteen ninkii u hogaaminayay ninkan ayuu ahaa dhawaan intii Xasan Sheekh Maxamuud uu dalka joogana ayaa dalka ninkan Soomaaliya la keenay oo Soomaaliya marka loo soo bedelay ninkan oo ah marka ninka madaxa ugu sareeya hawladeennada ama mashruuca Imaaraadka ciidanka Soomaaliya ku qabsanaya ninka ugu sareeya oo ah ninkan iyo ninkii xeradaasi Jordan ugu sareeyay iyo ninkii taabarayay ciidanka iyo dhowr noo kale oo madow ah oo qaar ka mid ah aan xataa la aqoonin shaqada ay qabanayeen iyo sargaal kale oo asaguna u dhashay dalkaasi Bahrain dadka meeshaasi ayay ku dhinteen inta marka waa inta la og yahay wadarta guud 20 ilaa 21 baa la gaarsiinaya dhimashada dhaawacna ilaa 30 baa la gaarsiinaya inta la og yahay marka wixii dhacay inta ay u badan yihiin waa laga yaabaa inay wax kala soo baxaan sidee wax u dhaceen ayaan ku xijinaynaa analysiskeena waa su'aasha ugu weyn oo la isweydiinayo isla markaasna la isku dayo in la qariyo sidee wax u dhaceen mujaamalada badan baa ku hareeraysan waxay dawladda Soomaaliya ay sheegtay in nin ka mid ah dadkii la tababaray uu markaasi ku bilaabay maxaa la toogasho saraakiishan qasaaraha inta laagna isagu u geystay laakiin information kaasi aqliga yaga yarka ah uu diidaya waayo waxaynu ognahay ama aynu ogaanay in nimanka meesha lagu laayay saraakiisha sarsare Imaaraadka ah oo nin walba asaga ka mid ah uu marka watay staff asaga u khaas ah oo shaqaystayaal madow ah oo ay tababarteen bay wataan nimankanu mana aaminaanba staffka khaaska Soomaaliya ma ahan dad ay wataan ba u ah oo madow ah nimankaas marka sarsare afarta ah meesha lagu dilay oo nin walba uu staff u wato hal nin
toogasho inuu ku wada dilo asagoo ninka aan la dilin aad suurtagal oo may ah markii aan rognay oo aan meelo badan ka istaagay oo aan arkay qaabkay u dhici karayaan laabid baa meeshan ka dhacday laakiin narrative-ka ay dawladda Soomaaliya dawladda Imaaraadkuba ay warbaahinta ku faafiyeen waa been aanan runtii marnaba suurtagal ahaan karinin waayo haddii qofku uu qof xabad markuu ku bilaabo kuwan kale ee ka agdhow staffkooda ayaa ayagana xabad ku soo dilaya marka qasaaraha inta uu ka yaraan lahaa haddii hal qof uu markaa u yahay marka laabid bay noqon karaysaa mar islaahay marka caqligayga yarka ku celceliyay midda ugu horeysa waa in meeshii waxa ka dhacay uu qarax yahay haddii masaajidka uu qarax ka dhaco oo kale to qasaaraha inta leeg marka uu dhalan karaya waa caadi qaraxuna waa la maqli lahaa ilaa hadda ma jirto cid maqashay oo muqdisho degan qaraxaasi taasa marka yaraynaysa suurtagalnimada wax meesha ka dhacay inuu qarax yahay marka ma badna laakiin waa suurtagal haddii qarax dhaco qasaaraha inta leeg uu dhici karaya iyadoo masaajidka lagu jiro dadku isku dhow yihiin midda labaad ahna scenario-ga ugu macquulsan waa aragtidayda arrintan analysis-ka waxa weeye in nimankii meesha al-shabaabka ahaa dilka geystay qorshahana fuliyay inay dad kooxa ahaayeen maybe 5 maybe 6 dad noocaayo kala inay ahaayeen oo markaasi hal mar bilaabi karaya inay dhowr qof oo kala duwan oo madaxa marka ay toogtaan ku bilaabi karaya way samayn karayaan qasaaraha intaan leeg ka bacdi meeshii lagu dagaalamo ciidankii marka ay taabarayeen meesha joogay Soomaalida ahaa iyo nimankii wixii ka soo haray ayagii inta dagaalamaan inay qasaaro 20 qof u gaaro iyo dhaawac inta leegna way dhici kartaa taasoo ah suurtagalnimada ugu macquulsan markaynu si waaqici ah u fiirino oo aynu iska riixino waxay Imaaraadka Xasan ee umada u sheegayaan sida markaa saan u maleynayo urka al-shabaab ayaa sheegtay inay iyagu geysteen wax meesha ka dhacay laakiin wax faa'iido kama aysan bixinin kulli waa markuu bariyo iyo dib baynu ku ogaan doonaa wixii meesha ka dhacay sidee ahaayeen iyo qaabkay u dhaceen ma qarsanan karayaan taa waa inta finally waxaan ku soo koobayaa waxay dhacdaan muujinaysaa waxaynu u baahanaa markii waxaan kala dhacaan inaynu wax isku dardari karno aynu faham ka qaadan karayno ayaan isleeyahay marka ugu horeysa waxay arrintan muujinaysaa ururka al-shabaab inay awood runtii xadaafa ay leeyihiin inay mashruuc inay qorshe sidaa ay fulin karayaan waxay muujinaysaa awoodooda oo kor marka u socota inay soo galaan xeeladan ciidanka ka mid noqdaan maalinkii la xirayay oo madaxdu isku timaado oo la doonayo in ciidankan marka lagu doonsiiyo ama la kala qaybiyo qaabkii marka Imaaraadka ugu shaqeyn lahayd Soomaaliya ma shaqeynayeen Imaaraadka u shaqeynayeen inay marka ay fuliyaan maxaa la yiraahdaa arrinta intaan la eg waa awood al-shabaab oo marka muuqanaysa oo aan la qarin karinin haddii marka ninka ugu sareeyay Imaaraadka dalkan u soo diran ay dileen al-shabaabku cid walba al-shabaabku ay dili karaan hatta Xasan Sheekh Maxamed ay doonayaan caawa I believe in inta ugu galaan fila Soomaaliya ay dili karaan awoodda ay leeyihiin haddii ay ninka dileen taa waa midda ugu horeysa oo meeshan ka muuqanaysa midda labaad oo muuqanaysa ayaa waxay tahay dalkeena waa lagu dagaalamaya waxaana ina soo galay wixii Yemen iyo Suudaan iyo meelaha iyo Liibiya ka dhacay oo Imaaraadku ay ka fuliyeen waxaa jira documentary ay dhawaan ay baahisay wakaalada loo yaqaano BBC-da af Ingiriisa oo markaas Imaaraadku wixii ay ka sameeyeen dalkaasi Yemen hada dib u laabataan waxyaalaha dhacdooyinka dhacay iyo arrintaani waxaad moodaa inay connection inay leeyihiin ama isku eg yihiin baad moodaa taasoo aan ka wado rag hadda laga laayay nimankan rag bay u aarsan rag bay u layn doonaan Soomaaliya maxillibaana wasiirra siyaasiyiin hore ma wasiir hadda kuwa jooga maxillibaana hadda jooga ma garanayo laakiin dad bay u layn doonaan Imaaraadka ragii laga laayay waana arrin caan ku yihiin weeye oo meelaha ay dhan dalkii ay qabsadeen marka ay ka sameeyeen marka wixii hadda ka dambeeyay qofkii madaxa ee xamar lagu asaasnad gareeyay ama lagu dilaa waa inuu fahmi karayna marka halka ay ka imaanayso cidda ka shaqeysa waa qodobka labaad qodobka saddexaad waxay nuuca u ogaanay Xasan Sheekh Maxamuud waa agent u shaqeeya Imaaraadka Carabta waxaana runtii aan caawa aan ka yaqyaqsoonayaa waxaan ka xishoonayaa inaan ugu yeero madaxweyne qaran xilli halka ay dad Soomaaliyeed oo badan oo ciidan ah ay ku dhinteen oo aan loo tacsiideenin xilli dhawaan saldhiggii ugu weynaa weerarkii ugu weynaa oo ciidanka Soomaaliyeed loo geystay al-shabaab ay dhawaan u geysteen dad aad u tiro badan oo ciidan ay ku laayeen oo aan loo tacsiideenin xilli dhawaan bakaaraha ilaa iyo 6-7 meelood oo kala duwan qaraxyo ay nimanka inta ku xireen dad 50 qof aan ka yareen
ay ku dhinteen waxaasoo dhan asagoon u tacsideenin ayuu caawa xasan dhowr luuqadoo kala duwan ugu tacsideynayay imaaraadka carabta afartiin oo ka dhimatay taa marka waxay muujinaysaa waxaa xasan kala weyn qancinta imaaraadka inuu dalka iyaga iyo dadkanaga iyo ciidankanaga markaa uu shaqeeyo aad baan oga xumahay inaan markaa madaxweyne caawa aan loogu yeero ama aan ugu yeero waxayna muujinaysaa sida dalkeenna uu gacanta ooga baxay bay muujinaysaa cid walbo caqlina caawa wixii ka dambeeya way arkaysaa halka aynu ku sugannahay iyo halka aynu u soconno dalka yagii officially wuxuu noqday maanta ka dambeeya dalay balaayo ku dhex dagaalamayso danta ay leeyihiin aan aqoonin waan wixii aynu muddo badan ka degeynay nimankan hala joojiyo nimankan dalka gacanta aan loo gelin amnigii dalka imaaraad baa mas'uulka amnigii dalka imaaraad baa mas'uulka ayagii iyo nimankii afka dubnaa baa ku dagaalamaya kooxa kalena waa suurtagal inay kusoo biraan oo ama kuwan afka duuban ama imaaraadka diidan ama la dagaalami doona wuxuu noqon doonaa dalkeena meesha markaa lagu dagaalamo ee xarunta ah waan wixii ummadda ay ka digaysay intaa baan kusoo koobayaa dalka allah inoo badbaadiyo ummadda soomaaliyeedna ilaahay subxaana watacaala midnimadooda iyo qulubtooda kusoo jeediyo intaasaan kusoo koobayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu